السلام عليكم. sidee u dooran kartaa takhasuskaaga jaamacadeed? halkani waxaan kugu soo gudbin doonaa tilaabooyin iyo qodobo ka anfici doona inaad si taxaddar leh u qiimeysid una dooratid takhasuska aad doonaysid inaad ka baratid jaamacadda. haddaba ku soo dhawaada mowduucina maanta. takhasuska aad dooranaysid waa nooca shaqo ee aad ku bixisid waqtigaaga intiisa badan. taasi waxaan dhihi karnaa waa dookhaaga saxda ah ee kugu habboon inaad baratid. haddaba maxaa la gudboon ardayga ka hor inta uusan dooran takhasuska uu doonayo? waxaa laga marmaan ah inaad isweydiisid su'aalahan soo socda. ma tahay mid dareemaya kalsooni markaad go'aaminaysid takhasuska aad baranaysid kaasoo xadidaya masiirkaaga nololeed? su-aasha labaad waxaa weeye, ma u aragtaa naftaada mid ka mira dhalin kardha takhasuska ay doonayso inay barato? su-aasha saddexaad, ma tahay naftaadu mid ku adkaysan karta go'aankeeda xataa haddii ay bulshadu dhan ka soo horjeestaan? haddii ay bulshadu dhahaan takhasuska aad dooratid maaha mid ku anfacaya, ma tahay mid ku adkaysan kara go'aanku qaatay? afar, ma tahay qof u dulqaadan kara dhammaan caqabadaha ka soo wajihi kara takhasuska uu baranayo? takhasuskaas caqabo maaliyadeed baa kaa soo wajihi karaa, mid mataqaanaa waqti baa kaa soo wajihi karaa, kuwaasi ma tahay mid u dulqaadan kara? midda shanaad, naftaadu ma ku raaxaysataa in ay waqti badan ku bixiso daraasaynta iyo baaritaano badan inay ku samayso takhasuska ay baranayso? haddaba haddii ay naftaadu intaasoo dhan ay fulin kardho, waxaa tahay qofka ku habboon inuu barto kuliyaddaas. sidee ardaygu u dooran karaa takhasuskiisa jaamacadeed? waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa ardayow qodobo iyo tilaabooyin kaa saacidi doona inaad si fiican u dooratid takhasuskaaga jaamacadeed. qodobka koowaad, aqoonso oo baar ahdaaftaada. muhiimadda koowaad waa jawaab u helidda su'aalaha ka guuxaya maskaxdaada, kuwaas oo ah maxaan doonayaa inaan barto oo aan ku takhasuso. su'aalahaasi waxay u baahan yihiin jawaabo, waana sababta aysan arday fara badan ugu baraarugsanayn ka fikirkeeda. kuliyadda aad dooranaysid waa tilaabo aad u qaadaysid xagga iyo mustaqbalkaaga. arrimahan awgii, markaad dooranaysid takhasuskaaga waxaa laga marmaan ah inaad ogarowsatid ahdaaftaada mustaqbaleed. tusaale ahaan, haddaan u soo qaadano hadafkayga aan u dooranayo takhasuskani waxa uu ku salaysan yahay inaan helo shaqooyin xadidan miyaa, mise inaan helo shaqooyin laakiin aan sii kordhiyo siina wado inaan siyaasado aqoon, cilmi iyo khibrado. haddaba waxa ardayga looga baahan yahay inuu inta uusan dooran hadafkiisa ama takhasuskiisa ku aadan jaamacadda waa inuu ka fikiraa hadafka uu ka leeyahay takhasuska uu baranayo. qodobka labaad, la sheekayso ardayda kaa daaweyn iyo macallimiinta jaamacadaha dhiga. la sheekaysigoodu wuxuu kaa anfacayaa inay xog qoto dheer kaa siiyaan takhasuska aad rabtid inaad barato. macallinka dhiga jaamacadda ee soo dhigtay takhasuska ama ardayga kaa daaweynaa ee soo dhigtay takhasuska aad rabtid inaad baratid, labadooda waxay khibrad iyo xog badan ka hayaan takhasuskaaga. sidaas darteed waxay kuu faahfaahin karaan dhammaan tilaabooyinka aad uga gudbi kadid caqabadaha kaa soo wajihi kara takhasuskaas. marka waxaa laga marmaan ah in aad raadisid macallimiin iyo arday kaa siin kara xog iyo macluumaad takhasuska aad rabtid inaad baratid. tilaabada saddexaad, daraasayn ku samaynta maadooyinka sanadka koowaad. daraasaynta maadooyinkaas waxay bannaanka soo dhigayaan arrimo badan oo kaa qarsoonaa ama kaaga dahsoonaa takhasuskaas, iyo inay daaha ka qaadaan fikradihii aad ka haysatay takhasuska. ardayda qaarkood waxay dhahayaan takhasuskaas waa mid adag oo aan nacfi badan lahayn, halka qaarkood ay leeyihiin wuu fudud yahay. arday walbana waxa uu ku cabirayaa qaabku u soo maray takhasuskaas. ardayda qaarkood baa waxay yihiin kuwo liita, waxayna doonayaan in adiga ay niyadda kaa jebiyaan. marka su'aalahaas oo dhan si aad meesha uga saadhid waxaa lagaa baahan yahay inaad daraasayn ku samaysid takhasuska. arrintaanisi waxay kaa caawin kardhaa inaadan mustaqbalka ka shallaayin go'aanka qaadatay, go'aankaas oo ahaa inaad dooratay takhasus aan nacfi ku lahayn. qodobka afaraad, u degdegidda helitaanka khibrad. ardaygu marka uu soo gaaro
marxaladda jaamacadeed waa marxalad u sahli karta ardayga in uu helo khibrad iyo xirfadooyin kala duwan sidaas darteed waa laga maarmaan inuu ardaygu ku dadaalo in uu helo khibrad iyo xirfad waqtiga u dhow ee munaasabka ah kulliyadaha qaarkood waxay u baahan yihiin dadaal dheeri ah tusaale ahaan kulliyadda caafimaadka iyo kulliyadda engineering oo kale kulliyadda caafimaadka ardaygu maanta waxa uu barto ayuu beri ku badbaadin karaa qof dhan noloshiis sidaas awgeed waxa ardaygaasi looga baahan yahay in uu tago meelaha shaybaarka si uu casharo badan u soo diraaseeyo oo baraatig ahaan u soo sameeyo ama waxa looga baahan yahay inuu adeeg u noqdo dhakhtar kaas uu ka heli karo faa'iidooyin tiro badan ardayga engineeringka tusaale ahaan oo kale ardayga baranaya kulliyadda civil engineering oo kale waxa looga baahan yahay inuu qaab tabarucaad ah uu u qabto shaqooyinka civil engineeringka tusaale ahaan kuwa dhismaha ku saabsan oo kale ardaygu markaas waxa uu heli karaa khibrad ka anfici kara beri inuu shaqadii sidii laga rabay inuu u qabto marka arday waxaan ku dhihi karaa waxaad u degdegtaa inaad koorsooyin badan gashid inaad meelo badan xirfadooyin aad ka heshid mar walbana ardaygu qaabka uu naftiisa wax u baro ama qofka waxa loo yaqaan inuu qofka naftiisa hormariyo ayaa ka anfici kara mustaqbalkiisa shaqeed haddaba ku dadaal ardayow qodobkan waa qodobka ugu muhiimsan ee ardayda jaamacadeed aysan aadka ugu baraarugsaneyn tilaabada shanaad aan ku soo gabagabeynayo qaabka ama qodobadii ka anfici lahaa ardaygu inuu si sax ah u doorto kulliyadda uu doonayo inuu ka dhigto jaamacadda qodobkaasi waxa uu noqonayaa ku salaynta takhasuska dakhliga aad ka helayso hadafka koowaad ee ardayga looga baahan yahay inuu ku saleeyo takhasuskiisa jaamacadeed waa inuu kasbadaa aqoon iyo cilmi ama inuu helaa heer waxbarasho oo tayadiisu sareyso ama helitaanka fursadooyin shaqo oo anfici kara beri ka maalin haddaba waa maxay kulliyadaha ugu tirada badan ee khubarada cilmigu isku waafaqsan yihiin in suuqa shaqo looga heli karo kulliyadahaasi oo aan qaab talo ah aan kugu siinayo waxa weeye kulliyadda engineeringka kulliyadda caafimaadka kulliyadda dhaqaalaha iyo kulliyadda ganacsiga badanaa kulliyadda dhaqaalaha iyo ganacsigu badanaa waxay ardada bartaa ay ku khasabtaa in ay la yimaadaan fikrad ganacsi ama in ay sameeyaan maskax maal wax loo yaqaano entrepreneur in ay noqdaan dad maskax maal ah oo fikradooyin shaqo abuur sameeya marka mar walba ardayga waxaan kula talin lahaa in uu la yimaado fikrad ganacsi ee uusan ku koobnaan inuu mar walba shaqo raadis noqdo marka ardayga waxaan ku dhihi lahaa waxaad kulliyadaada ku salaysaa waxa aad beri ka maalin ka heli karin iyo in ay kuu soo celin kardho dakhligii iyo kharashaadkii kaaga baxay jaamacadda haddaba waxaan filayaa in aad ka faa'iiday qodobadaas oo kaa saacidi kara in aad si saxa u dooratid takhasuskaaga jaamacadeed haddaba waxaan kaa codsanayaa in aad ka mid noqotid bahaweynta iyo bulshada nagu taxaan channelkeena